Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada bilowga tababar ku saabsan adeeg bixinta asaasiga ee hooyada xilliyada uurka, dhalmada, umusha iyo daryeelka la siiyo ilmuhu marka uu dhasho ee loo yaqaano BEMOC Basic Emergency Obstetric and Newborn Care oo ku bixi doona hab online ah. hore waxaan soo baahinay daawadayaal tababarkan oo aan soo iclaaminay, laakiin maanta waxaan jeclaysanay intii soo codsatay iyo guud ahaan danayaasha tababarkan ba in aan faahfaahin ka bixino waxa uu yahay tababarkan, muhiimadiisa iyo sidoo kale inaga markaan soo tilmaanay oo sheegnay inuu muhiimad gaar iyo mudnaan u leeyahay guud ahaan xirfadlayaasha caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha kala duwan ee daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo hospitaalada, sidoo kale ardayda diyaarinta kuliyaha kala duwan ee caafimaadka jaamacadaha. haddaba waxaynu maanta eegi doonaa muhiimadda uu leeyahay tababarkan, baahidiisu, bal qof kasta markaas si uu fahmo macna ahaan waxa uu tababarkani intii aan markii hore soo baahinay ee ahaa 13kii chapter ee uu ka koobnaan doono tababarkan ayaan maanta mid kasta ciwaan hawsaadadiisii iyo guud ahaan iska siin doonaa warbixin iyo macluumaad kooban si aan soo jaan qaadi karno insha Allah inta aynaan bilaabin casharka koowaad ee tababarkan. training content insha Allah ta'ala wuxuu noqon doonaa sida tan daawadayaal. chapterka koowaad wuxuu noqon doonaa sidan inaynu nidhaahno focused antenatal care rational component and tools. marka hore tilmaano diirad saarista adeeg bixinta uureyda ama dhalmada ka horeysa iyo component and toolskeeda waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo sidoo kale toolska la isticmaalo ee loo baahan yahay xilligan la bixinayo adeegan. session objective-kana wuxuu noqon doonaa sida soo socotaan inaynu marka hore describe focused antenatal care, inaynu describe garayno diirad saarista adeeg bixinta dhalmada horteed ama uureyda ee loo yaqaano FANC ama FANC focused antenatal care. wuxuu noqon doonaa ciwaan hoosaadkeena labaad ee chapterka koowaad describe basic element of focused antenatal assessment and care, inaynu marka hore tilmaano basic elementiga ama waxyaabaha asaasiga u ah adeeg bixinta uureyda iyo assessmentigeeda intaba ama qiimeynteeda. define the element of effective counseling, inaynu define garayno walxaha ama elementiska ka dhigi kara effective adeeg bixinta uureyda xilliga lagu jiro counseling ama talada ay u baahan tahay hooyada uur kale ee adeegga la siinaya. describe the element of birth preparedness and complication readiness, inaynu iyadana marka hore describe garayno ayaynu eegi doonaa element of birth preparedness waxyaabaha loogu diyaarinayo hooyada dhalmada iyo sidoo kale complication readiness-ka in laga feejignaado dhibaatooyinka ka iman kara dhalmada, uurka iyo sidoo kale umusha intaba. sida ogeed waxaanu eegi doonaa iyadana demonstrate the profession of focused antenatal care, qaabka loo sameeyo ama loo bixiyo adeeg bixinta uureyda. waxaynu iyadana ku xigsiin doonaa bal objective-kani wuxuu yahay waa maxay ujeedada aynu ka leenahay totaliba waxa la yiraahdo ANC waa maxay ujeedada aan ka leenahay. ujeedadani waxay noqon doontaa saddexdan qodob ee soo socotayna marka hore kow healthy pregnancy, in la helo ama ay hooyada uurka leh mid noqoto mid caafimaad qabta, in hooyada uurka leh noqoto mid caafimaad qabta. ujeedada labaadna waa a healthy outcome for mother and newborn, hooyada iyo ilmaha ay dhalaysa labaduba iyaguna ay noqdaan kuwa caafimaad qaba. ugu dambeyn promotion of physical, mental and social health, inaynu kor u qaadno caafimaadka jir ahaaneed, maskaxeed iyo bulsheed ee hooyooyinka uurka leh. intaa waxaynu u noqon doonaa chapterka koowaad. chapterka labaadna wuxuu noqonayaa sidan HIV and prevention of mother to child transmission PMTCT, iyadana inaynu samayno waa maxay ka hortagga hooyada qabta cudurka HIV-ga inuu gudbiso ilmaha caloosha ay ku sido, siyaabaha looga hortagi karo hadiiba ay jirto hooyo qabta cudurka HIV-ga inuu gudbiso ilmaheeda caloosha ku jira. waa maxay markaa session objective-keena ama muxuu noqon doonaa chapterkan waxyaabahan ku baran doonaa. chapterkan waxyaabahan ku baran doona waxaa ka mid ah to discuss the best practice for antenatal, interpartum and postpartum care of HIV positive mother to reduce mother to child transmission, inaynu discuss garayno best practiceska ama habka ugu fiican for antenatal xilliga uurka, interpartum dhalmada and postpartum care daryeelka xilliga uurka, dhalmada iyo umusha ay u baahan tahay hooyada HIV positive-ka ahi si aan u reduce garayno ama aan u yarayno inay hooyadu u gudbiso ilmaheeda cudurkii. waxaanu ku faahfaahin doonaa insha Allah tababarka gudihiisa, laakiin cudurka haddii ay jirto hooyo qabta HIV-ga waxay ilmaha u gudbin kartaa 3 jeer oo marka koowaad waa antenatalka, marka labaadna waa interpartum, marka saddexaadna waa postpartum-ka.
xilliga uurka dhalmada iyo sidoo kale umusha ayay ilmaha u gudbin kartaa hooyadu qodobka labaad muxuu noqonayaa to describe the evidence supporting these practices inaynu eegno waxyaabaha inaga caawinaya inaynu sameeyno habkan inaynu hooyadu u gudbinin cudurka haddii ay qabto ilmaheeda chapterka isna saddexaad waxa uu noqonayaa bleeding in early pregnancy dhiigga ka yimaada hooyada uur kale bilaha hore ama saddexda bilood ee ugu horeeya ayaan odhanaynaa early pregnancy-ga bilaha ugu horeeya waxa weeyaan section objective isagana sidoo noqon doona to describe best practice for diagnosis of vaginal bleeding in early pregnancy inaan describe garano tilmaami karno habka ugu fudud ama habka ugu fiican hay'adaha for diagnosis aynu ku ogaan karno vaginal bleeding in early pregnancy-ga dhiigga ka yimaada dhalmeedka bilaha hore ee uurka early waxaan odhanaynaa waa saddex bilood ee ugu horeeya uun xilliga uurka midda labaadna waa maxay aan ku baran doono chapterka saddexaad waxay noqonaysaa to describe best practice for management inaynu xusi karno ama tilmaami karno habka ugu fudud ama ugu fiican ee aynu u maareyn karno vaginal bleeding during early pregnancy dhiigga ka yimaada haweenka marin dhalmeedka inta lagu guda jiro bilaha hore ee uurka to describe post abortion care element sidoo kale inaynu xusi karno iyadana waxyaabaha post abortion care kale yado waxyaabaha looga baahan yahay hooyadu haddii abortion ku dhaco ama ilmo uu ka qubto daryeelka ay u baahan tahay muxuu noqon karaa to list post abortion family planning options iyadana waxaynu list gareyn doonaa ama aynu tilmaami doonaa intixi doonaa post abortion family planning optionska waxyaabaha xilliga uu abortion ama dhicis yimaado nooca family planning-ka ee la isticmaali karo ayuu iyadana ama optionskaas aynu isleegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo chapterka afraad sana wuxuu noqonayaa maadaama soo sheegnay vaginal bleeding in early pregnancy haddana waa vaginal bleeding in late pregnancy and labor dhiigga ka yimaada haweenku waqtiga uurka ay leeyihiin marin dhalmeedka xilliga dambe ama bilaha dambe uurka iyo sidoo kale inta ay socoto foosho session objective-keenu waa sidan to describe best practice for diagnosis and management of abruptio placenta inaynu describe garayno habka ugu fiican ee aynu u diagnose garayn karno isla markaana aynu u maareyn karno waxa loo yaqaano abruptio placenta abruptio placenta waxa weeyaan waa premature separation of placenta placentada oo ka soo gooda xilli hore meeshii ay ku samaysnay ama ay ku taalay to describe best practice for diagnosis and management of placenta previa iyadana inaynu describe garayno oo aan tilmaano siyaabaha aynu ku diagnose garayn karno ama aan ku ogaan karno isla markaana aan ku maareyn karno waxa la yiraahdo placenta previa waxa weeyaan mandheerta oo timaada marin dhalmeedka mandheerta oo kasoo guurta meesheedii isla markaana timaada marin dhalmeedka oo qayb ahaan ama guud ahaanba qarisa oo daboosha marin dhalmeedkii chapterka shanaad isna wuxuu noqon doonaa management of headache convulsion loss of consciousness or elevated blood pressure maareynta madax xanuunka convulsionka ama gariirka waxa loo yaqaano loss of consciousness hooyada oo lumisa xiskeeda or elevated blood pressure ama cadaadiska dhiigga oo sameeya kor u kac sameeya session objective-kan waxa uu noqonayaa sidan discuss best practice for diagnosis and managing hypertension preeclampsia and eclampsia inaynu discuss garayno best practiceska ama habka ugu fiican ee aynu ku ogaan karno isla markaana aan ku maareyn karno hypertensionka ama dhiigkarka oo dhowr nooc u qaymi doono insha Allah preeclampsia oo iyadu ah inay hooyadu cadaadiska dhiigeedu xilliga uurka ay leedahay kor ugu kaco ilaa iyo uu gaaro heer lagu arko kaadida borotiin ama dux sidoo kale aan eclampsia ama hooyada oo yeelata iyaduna ilaa xad intuu dhiigii kor u kaco yeelata convulsion ama gariir inay carabka cunto ama ay collapse garoodo ama ay coma gasho waxaan u maleynayaa Soomaali ahaan in la yiraahdo anagu naqaano blood pressure wax la yiraahdo describe strategies for controlling hypertension inaan describe garayno insha Allah taala strategies-ka ama strateejiyadaha aynu ku control karno ama aan ku yareyn karno ama aan ku joojin karno hypertensionka ayaan iyadana ku baran doonaa chapter-kan shanaad describe strategies for prevention and treating convulsion in eclampsia sidoo kale waxaan describe garayn doonaa strateejiyadaha aynu kaga hortagayno aan ku yareynayno isla markaana aan ku treating garayno ama ku daweynayno convulsionka ama gariirka yimaada
hooyadu xilliga ay gasho ama ay yeelato eclampsia-da. chapterka 6 isagana wuxuu noqon doonaa haddii Ilaahay ka dhigay tababarkeenu management of headache, convulsion and consciousness or elevated blood pressure. chapterka 6 isagana waxaan ku baran doonaa fever during pregnancy, xumada timaada hooyada ku dhacda waqtiga uurka ay leedahay oo noqon doonta insha Allah iyaduna qaabaan isin sheegi doono. Okay, chapterka 6 isagana waxaan ku baran doonaa fever during pregnancy, xumada timaada xilliga uurka. Session objective-kan waxaa noqonayaa sidan: to describe causes of fever during pregnancy, inaan tilmaano oo aynu qeexno waxyaabaha keena ee sababta u ah xumada xilliga uurka timaada. Sidoo kale describe general assessment of a woman with fever during pregnancy, inaan describe garayno general assessment-ga ama qiimeynta guud oo loo sameeyo hooyada xilliga uurka ay leedahay xumada ku timaada. Sidoo kale to describe management of for common causes of fever during pregnancy, iyadana inaynu describe garayno management-ga inta badan common-ka ah waxyaabaha cause gareeya xumada hooyada waqtiga uurka ay leedahay. Describe the effect of malaria on pregnancy woman and their newborns, inaan describe garano iyadana tilmaano effectiga ama saameynta ay ku yeelan karto malaariyadu hooyada uurka leh iyo ilmaheeda caloosha ku jiraba ama ilmaheeda yar ee uurka ay ku sidato. sidoo kale describe the 4 main strategies, inaan describe garano oo tilmaano afarta ugu waaweyn istaraatiijiyadaha lagu tilmaamayo ama lagu address gareeyo ama loo raacayo malaria in pregnancy, inta badan lagu xakameeyo ama lagaga hortago malaariyada in pregnancy-ga hooyadu xilliga uurka ay leedahay ka malaariyada ku dhici karta iyadana. chapter 7 wuxuu noqonayaa sida tan: care during labor and childbirth, daryeelka la siiyo hooyada xilliga ay foolanayso iyo dhalashada ilmaha intaba. session objective-ka waxaa noqon doonaa ee tababarkeenu insha Allah tacaala sida tan: inaanu samayno to identify, inaanu identify garayno best practice to identify best practice for managing labor and childbirth, inaanu aqoonsano habka ugu fiican ee aynu maareyn karno hooyada foolanaysa xilliga ay dhalayso. birth preparedness and complication readiness, u diyaarinta dhalmada iyo ka diyaargarowga dhibaatooyinka dhalmadu ay dhaxalsiin karto hooyada. bartograph, isticmaalka bartograph-ka ama jaantuska foosha, maareynta firfircoon ee marxaladda saddexaad ee foosha. active management of third stage of labor, inta badan markaan leenahay waa xaalad ayaa la yidhahdaa adag ama waa waqtiga ugu adag ee hooyadu ay ku jirto nolol ahaan. marka ay ugu adag tahay oo waxaa la yidhahdaa waa marka ay hooyadu dhiman karto, noolaan karto ilmaha oo dhasha dabadeed, waa in loo sameeyo marka wax loo yaqaano active management of third stage oo insha Allah tacaala ku faahfaahin doono tababarka gudihiisa. restrictive episiotomy, waxyaabaha diidaya ama ogolaanaya iyana eegi doona ee restrictive ka dhigaya in la sameeyo episiotomy ama ballaarin lagu sameeyo mari dhalmeedka marka ilmuhu uu dhalanayo. sidoo kale to identify harmful practice with the goal eliminating them from practice, inaanu aqoonsano harmful practiceska ama waxyaabaha dhibaatada ee lagu sameeyey with the goal of eliminating, iyo sidoo kale hadafyada lagu yareynayo them for practice cidda sameynaysa. marka inta badan harmful traditional practice baa la yidhahdaa waxyaabaha gudniinka fircooniga oo kale soo hosgelayadana waynu falanqeyn doonaa insha Allah tacaala tababarka dhexdiisa. chapterka 8 wuxuu noqonayaa immediate care of newborn, daryeelka degdega ah ee la siiyo ilmuhu marka uu dhasho, maadaama ciwaanka tababarkeenu uu yahay daryeelka asaasiga ah ee la siiyo hooyada waqtiga uurka, dhalmada iyo foosha, umusha iyo ilmaha yar ay dhasho marka uu dhasho ilmaha yar. sidaa awgeed immediate care of newborn, daryeelka degdega ah ee la siiyo ilmaha marka uu dhasho waa wuxuu noqonayaa sida tan session objective-keenu insha Allah: define essential, inaan define garano marka hore aan qeexno essential element of early newborn care,
elementiska ama lagama maarmaanka ah xilliga hore ee ilmuhu dhasho in la siiyo daryeelka noocaas aan faahfaahin doonaa. Discuss best practice for promoting newborn health. waxaan discuss gareyn doonaa habka ugu fiican ee kor loogu qaado caafimaadka ilmaha yar marka uu dhasho. sidoo kale use relevant data and information to develop appropriate essential newborn recommendation. inaynu iyadana isticmaalno relevant data-ga ama xogta la xidhiidha iyo macluumaadka sheegaya inuu ilmuhu develop gareyn karo ama loo baahan inuu develop gareyno appropriate essential newborn care-ka ama inaynu samayno daryeelka laga maarmaanka ee ku habboon ilmaha yar sidoo kale recommendation-ka ah in loo ogol yahay. chapter-ka 9aad isna wuxuu noqon doonaa haddii ilaahay ka dhigo sida tan abnormal progress of labor. inaynu eegno haddii ilaahay ka dhigo foosha aan caadiga ahayn calaasha marka la abnormal progress of labor wax weeyaan haddii ay fooshi timaado isla markaana ayna u soconin si caadi waxay noqonaysaa abnormal progress of labor socodkii foosha oo noqda mid gaabisa tusaale ahaan taasina soo qaadan karnaa inagoo gudaha ku faahfaahin doona. objective-keenu wuxuu noqonayaa ama session objective-keenu insha Allah sida tan demonstrate ability to use a bartograph to recognize abnormal progress of labor. waxaynu samayn doonaa insha Allah taala demonstrate gareyn doonaa ama samayn doonaa ability to use bartograph awood inaynu u yeelano isticmaalka jaantuska foosha si aynu u recognize gareysno ama aanu aqoonsano abnormal progress of labor foosha aan caadiga ahayn calaashan jaantuska foosha inta badan wuxuu naga caawinaya inaan ogaano foosha inay si sax ah u socoto iyo inay isbedeshay oo qeylo caadi noqotay ayuu naga caawiyay sida awgeed isticmaalka bartograafka iyo aqoonsiga abnormal progress of labor-ka foosha uu socodkeedu yahay mid aan caadi ahayn ayaynu ku baran doonaa. sida oo kale waxaanu baran doonaa oo ku baran doonaa isagana chapter-kan 9aad identify the causes inaan identify garano oo aqoonsano causes of abnormal progress of labor waxyaabaha sababa inay fooshu noqoto mid abnormal ah baynu eegi doonaa. sidoo kale demonstrate ability to provide initial management and refer a woman with a prolonged and obstructed labor. inaan demonstrate garano isla markaana aan awood u yeelan doono to provide initial management inaan samayno maalinta asaasiga ama bilowga ah aan fever iyo sidoo kale inaan gudbino haweeneyda with the prolonged and obstructed labor haweeneyda aynu ku aragno ama yeelata prolonged and obstructed labor. inta badan feverka wuxuu la samayn karaa oo meelaha feverka laga samayn karaa waa meel aan waxba laga qaban karin xaaladda marka prolonged labor waxa weeyaan foosha oo waqtigeedii in ka badan qaadata obstructing waa inay joogsato. sidoo kale discuss the complication of obstructive labor waxaan discuss gareyn doonaa dhibaatooyinka ay dhaxalsiiso obstructive labor-ku hooyada alsan dhibaatooyinka ay dhaxalsiiso waxa weeyaan haddii ay foosha obstructive noqoto istaagto maxaa dhibaato ka dhalan kara. chapter-ka isna 10aad wuxuu noqon doonaa vaginal bleeding after childbirth dhiigga ka yimaada marin-dhalmeedka dhalmada dabadeed dhiigga haweenka ka yimaada marin-dhalmeedka dhalmada dabadeed ama xubinta taranka ka yimaada marin-dhalmeedka ayaynu odhanaynaaye dhalmada dabadeed. wuxuu noqon doonaa session objective-keenu insha Allah cutubkan ku baran doonaa by end of session insha Allah dhamaadka session-kan participant will be able to ka qayb qaatayaashu ama tababar qaatayaashu waxay awood u yeelan doonaan ama aan dhammaantiin awood u yeelan doonaa qodobadan soo socda. describe the significance of postpartum hemorrhage inaan describe gareyno waxyaabaha significant-ga ah ee tusin kara inuu jiro postpartum hemorrhage ama BPH wax loo yaqaan dhiigbaxa ka dambeeya dhalmada. sidoo oo kale discuss the causes of postpartum hemorrhage waxaan discuss gareyn doonaa waxyaabaha sababa dhiigbaxa ka dambeeya dhalmada. sidoo kale discuss the prevention of postpartum hemorrhage waxaan discuss gareyn doonaa waxyaabaha keena dhiigbax aan idhaahdee siyaabaha loo prevention gareeyo ee looga hortago dhiigbaxa ka dambeeya dhalmada. sidoo oo kale describe the management of postpartum hemorrhage waxaan describe gareyn doonaa oo tilmaami doonaa siyaabaha loo maareeyo dhiigbaxa ka dambeeya dhalmada. chapter-ka isagana 11aad wuxuu noqon doonaa basic care of mother during the postpartum period daryeelka la siiyo hooyadu waqtiga ay ku jirto umusha. wuxuu noqonayaa oo ku baran doonaa sidan dhamaadka session-kan waxaad insha Allah taala participant-igu ama ka qayb qaadashayaashu awood u yeelan doonaan sidan describe the significance of postpartum care aynu tilmaami karno significant postpartum care-ka ama daryeelka muhiimka ah hooyadu u baahan tahay xilliga umusha tahay. describe key assessment during the postpartum period inaan soo kale isgarab garayno assessment-ga ama qiimeynta u baahan yahay haweeneydu u baahan tahay xilliga ay ku jirto umusha. sidoo oo kale describe the element of care profession of postpartum mother
waxaan describe garan doonaa elementiska ama waxyaabaha looga baahan yahay ee daryeelka ay hooyadu xilliga ay ku jirto umusha sidoo kale chapterka 12 wuxuu noqon doonaa managing fever after child birth xumada timaada dhalmada dabadeed siyaabaha loo manage kariyo ama loo maareeyo oo aynu ku baran doono iyadana dhamaadka chapterkan insha Allah learner will be able to or participated will be able to awood waxa uu yeelan doonaa insha Allah discuss the prevalence of postpartum infection prevalence-ga ama waxa yiraahdaa xaddiga inuu ku dhici karo caabuq ama infection ku dhici karo hooyadu marka umusha tahay sidoo kale describe risk factor for and diagnosis of postpartum infection inuu describe risk factors waxyaabaha riskiga ku ah ama khatarta gelin kara hooyada iyo sidoo kale diagnosiskeeda marka umusha ay tahay infectionka iman kara sidoo kale describe clinical treatment approaches waxaan sidoo kale describe garan doonaa clinical approacheska ama hababka hooyada lagu daweeyo clinical treatment approacheska hababka loo daweeyo haddii yimaado infectionka iyo xaaladaha iman kara waqtiga hooyadu ay ku jirto umusha sidoo kale discuss strategy for prevention postpartum infection idan waxaan discuss garan doonaa istaraatiijiyadaha lagaga hortagayo inuu yimaado postpartum infection ama caabuq yimaado xilliga umusha waliba caabuq halis ayaa yimaado xilligan oo khatar badan haddii aan la sameeynin maareyn fiican insha Allah tababarka dhexdiisa ayaynu ku faahfaahin doonaa waxaan sidoo kale describe garan doonaa programmatic approacheska ama hababka looga hortago isla markaana loo sameeyo treatmentiga prevention and treatment labada ka hortagga iyo daaweynta labadaba hababka loo sameeyo chapterka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa hadii la ka dhigo 14aad care of newborn with problems daryeelka ilmaha leh dhibaatooyin caafimaad oo noqon doona sidan insha Allah by the end of session the learner will be able to sida soo socota discuss the key element waxaan discuss garan doonaa key elementiga ama waxyaabaha furaha u ah in recognizing the newborn with problems aqoonsiga ilmaha dhibaatooyin caafimaad la dhasha sidoo kale discuss the recognition of management of newborn needing gestation inaan discuss garan doonaa insha Allah taala sidoo kale recognition qaabka loo recognize ama loo aqoonsado and management loona maareeyo of a newborn needing gestation ilmaha u baahan gestation ama xaalad khatar ama serious ah oo u baahan gestation waxa la yiraahdo in noloshiisa aan badbaadino ama dib u soo celino sida ilmo oxygen ka maqan tahay oo kale marka uu dhasho discuss the recognition and management of low birth weight newborn inaan waxaan discuss garan doonaa isla markaana aynu eegi doonaa recognition-keeda ama siyaabaha lagu aqoonsado iyo sida loo maareeyo labadaba of the low birth weight newborn ilmaha ku dhasha miisaan hooseeya ilmaha ku dhasha miisaan hooseeya sidoo kale describe the key element of kangaroo care ama kangaroo mother care waxaan describe garan doonaa key elements ama waxyaabaha furaha u ah waxa la yiraahdo kangaroo mother care waxa weeyaan hooyada oo ilmuhu marka ay dhasho loo saaro laabta ama shafka loo geliyo marka ay dhasho dabadeed ayada kangaroo mother care waxaan laga keenay xayawaanka la kangaroo oo inta badan kiish isagu kula laabta ilmihiisa uu ku rito discuss the recognition and management of sepsis in the newborn waxaan discuss garan doonaa isla markaana aynu eegi doonaa recognition-keeda ama qaabka ama waxyaabaha lagu aqoonsado iyo sida loo maareeyo sepsis in newborn sepsis inta badan waa nooc ka mid ah ama waa erebixin kale uu leeyahay caabuq waan odhanaynaa ilmaha yar ku dhaca marka uu dhasho sida awgeed 14ka chapter ayaa rajeynayaa in aynu guud ahaan ku faalayno oo ku falanqeyno inta uu socoto tababarkani waxaan rajeynayaa qof kasta oo daneynaya inuu insha Allah taala diyaar aanu nahay inaan uga faa'iideyno oo ka faa'iideysto isaguna insha Allah taala tababarkan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh